agaasime maxamed xaaji agaasime wacyigelinta tahay commissionkii xakamaynta aidiska qarankaa tahay kaalinta aad ku leedihiin bulshada inaad wacyigelisaan bulshada si xooga ugama muuqato ma dadkan fariintiina saani u qaadan ma dadkan fariintiina dheelsada ma idinkaan firfircooneyn oo shaqadii sidii loo baahnaa aan idinku socon bal kaalintiinu maxay tahay commission ahaan bismillaah maxamed aad baad mahadsan tahay ramadaan mubaarak baan leeyahay dhammaan bulshooyinka reer somaliland ee qiimaha leh iyo mm t v oo kule caawa dood abuur aan marti ugu nahay runtii commissionku run ahaantii dee 2005 ayaa la aasaasay xilligii dowladdii daahir yaale kaahin ilaa xilligaa dee wuxuu wadan wacyigelin iyo dadka xanuunka ku soo dhaco sidii loo daryeeli lahaa markaan su-aashaada ka jawaabo maxamedow dadku inta badan markay maqlaan aids ama aan wacyigelintii idhaahno waxaan nahay commissionka xakamaynta HIV aids-ka waabay sii didaan dadka qaar marka kolley social mediahana xoog baanu isticmaalnaa markaa dadkaad moodaa inay naga moogan yihiin oo xanuunkii ay isdhaafinayaan laakiin intii dambe covid-19kii iyo xumadii iyo xaaladihii duwanaa lasoo kala maray dadku way ilaaweenba xanuunkan la idhahdo HIV aids-ka marka anagu ma odhan karno ka commission ahaan wacyigelinteedu way hooseysaa mar walba waxaanu ku dadaalaa oo sanad walba qorshahiisa aan sameynaa inaanu gaadhno intii sanadkii hore aanu gaadhno in ka badan oo aanu dhammaan jamhuuriyadda somaliland wacyigelinta gaadhsiino degmooyinkooda iyo goboladeeda iyo tuulooyinkeeda iyo meel kastoo bulshadu ay isugu timaado runtiina wacyigelinta waxaanu marinaa fariimaha dee maanta waxaad ogtahay in la isticmaalayo social mediahii mar kastaba bagekaanu leenahay haddaad booqato lagama waayaba isagoo mar kastaba sii qoyan oo fariintii wacyigelintu ay taalo laakiin waxaad moodaa inay dadkii ka moogan yihiin oo xanuunkan isdhaafinayaan oo markaaba ay maqlaan HIV aids baa barnaamijka ka hadlaya qofka waxaa laga yaabaa inuu linkigaba isdhaafiyaba marka waxaan odhan lahayn dee maadaama idinkuna inta badan dee dadkaad fariimahana gaadhsiisaan doodahana aad qabataan dee inaad frontier mararka qaar aad ka dhigtaan oo bal aad wacyigelintaa nagala qeyb qaadataan waan soo jeedin lahayn agaasime adigoo mahadsan haddii dadku isdhaafinayaan fariimihii aad gudbinayseen waxaa jira wacyigelinaha in siyaabo badan loo qabto oo ay kala duwan tahay oo dhowr to dhowr ay jirto guryihii xafiisyadii dariiqyadii microphoniskii istaagii wax walba ay leedahay marka kaalmahaasi iyaga midaan dhinac kale u bedelin oo fikirkiina haddii halkaa laga aqbali waayey dhinaca kale midaan wareegin maya wallaahi maxamedow qorshayaasha imika noo dejisan iyo kuwii hore aan ku wadnayba waxa weeye inaanu kolba si u dhigno baasha oon kolba weji cusub keenno iminka xataa daraamiskaanu ku sameynaa waxaanu sameynaa inaanu xataa bal dadka laftigooda isteejiyada iyo jaamacadaha laftigooda inaan xataa musalsalada filimkii la odhan jiro kale aan wacyigelinta soo gelino ayaan iminka xataa qorshayaasheeda ku jira hiigsi fogna waa leenahay insha allahu tacala waxaanu isleenahay meelo fara badan sida aad sheegto oo kala duwanna horena waan ugu daynay iminkana waa ku dayaynaa insha allahu tacaala